kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena sheekada koowaad waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn ee caalamka qodobada wararka anagana ku maqli doontaan waxaa kamid ah ciidanka Israa'iil oo shaaciyay inay dileen mid kamid ah asaasiyaashii Xamaas wargeysyada caalamiga ayaa wax ka qoray dib u soo cusboonaaday kala qaybsanaanta gudaha Israa'iil kadib markuu dhamaaday dagaalka Iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo dhiirigeliyay adkeysiga shacabka waxaad u diyaar garowdaan qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan ciidanka Israa'iil oo shaaciyay inay dileen mid kamid ah asaasiyaashii Xamaas ciidanka isku magacaaba ciidanka difaaca Israa'iil ayaa ku dhawaaqay inay dileen Xakam al-Ciisa oo ay ku sifeeyeen mid kamid ah asaasiyaashii xarakada Xamaas iyo hogaamiyaasha ugu sareeya ee garabka militariga ee ururkaasi ee gudaha marinka Gaza ciidanka wuxuu sheegay inay toogasho ku dileen al-Ciisa xalifiidkii iyadoo duqeyn lala beegsaday xaafada Sabra ee magaalada Gaza waxaa kaloo sheegeen in Xakam al-Ciisa uu ahaa madaxa xarunta tababarka iyo taageerada ee Kataib al-Qasam oo ah garabka militariga ee Xamaas siday baahisay wakaalada wararka ee Anadolu ee Turkiga ilaa bartamii habeenkii wax war ah kama soo bixin dhanka Xamaas ama Kataib al-Qasam oo ku saabsan sheegashada ciidamada Israa'iil tan iyo 7 Oktoobar 2023 Israa'iil iyadoo garab ka helaysa Mareykanka waxay ka wadaysay xasuuq bahsan oo ka dhan ah shacabka Gaza kaasoo iskugu jira dil gaajo burburin iyo barakicin iyadoo si joogto ah u diidaysa baaqyada caalamiga ah iyo amaro ka soo baxa maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ oo ku faraysa in la joojiyo weerarada xasuuqaas wuxuu sababay in ka badan 189,000 oo Falastiiniyiin ah oo u dhaxaysay kuwa shahiiday iyo kuwa dhaawacmay badankoodna waa caruur iyo haween in ka badan 11,000 oo qof oo la laayahay 100 qof oo ku barakacay gudaha Gaza iyo gaajo sababaysa dhimasho gaar ahaan caruur badan wargeysyada caalamiga ayaa wax ka qoray dib u soo cusboonaaday kala qaybsanaanta gudaha Israa'iil kadib markii uu dhamaaday dagaalka Iiraan dadka qaar ayaa ku dooday in weerarka Mareykanka ee Tahran uu fariin cad diray Shiinaha iyo Ruushka isla markaana la gaaray guul istiraatiijiyadeed oo waqti gaaban ah laakiin ay sababi karto xasilooni darro mustaqbalka fog ee gobolka wargeyska The Times ayaa ka soo baxa Britain ayaa la hadlay tiro kamid ah askartii Israa'iil oo diiday inay ku laabtaan waxay u arkaan dagaal aan dhamaanin oo ka socda marinka Gaza waxaa kamid ah askari muddo 270 maalmood oo shaqeynayay balse diiday inuu ka jawaabo baaqi ugu dambeeyay oo ku xirnaa muddo 25 maalmood ah askarigan oo waraysi siiyay wargeyska ayaa sabab uga dhigay diidmadiisa inuu dib u soo laabto dagaalka isagoo sheegay inuu aad uga naxay dagaal aan ujeedo cad laga lahayn maadaama lagu guul dareystay soo celinta dadkii la qafashay iyo dhimasho dad badan oo waxba galabsan wargeyska The Guardian ayaa ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay maqal uu kaga hadlayo dib u soo cusboonaadada kala qaybsanaanta Israa'iil ee ka dhalatay dagaalka Gaza kadib uu dhamaaday dagaalka Iiraan wargeysku wuxuu maqal ku sheegay ma jiro wax iska bedelay oo quseeya ra'iisul wasaaraha Netanyahu iyo siyaasadiisa marinka Gaza maqalku wuxuu tilmaamay in su'aasha ay tahay natiijada dagaalka Iiraan ay dadka iloosiyaan in fashilka amni ee ugu weyn taariikhda Israa'iil uu dhacay xilliga Netanyahu laga yaabo inay sabab u tahay siyaasadda uu socdo muddo sanado ah sidaan oo kale wargeyska Le Monde ee ka soo baxa Faransiiska ayaa sheegay in qoysaska maxaabiista Israa'iil ay isku dayayaan inay ka faa'iideystaan xaaladda hadda jirta waxayna dhammaan rajada ka qabaan madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump wargeysku wuxuu tixgeliyay in xawliga laga helay kadib joojinta dagaalka Iiraan waxayna xoojinaysaa rajada ah in Trump uu awood u yeelan doono inuu ku soo rogo ra'yigiisa Netanyahu marka uu rabo waxay soo xigatay xubin ka tirsan madasha qoysaska maxaabiista oo leh inay tahay arrinta kaliya oo rabitaan siyaasadeed ah wargeysku wuxuu sheegay in dadka u ololeeya xuquuqul insaanka ay cabsi ka qabaan in ololaha uu sii fido ugu dambeyn wargeyska National Interest ayaa sheegay in faragelinta Mareykanka ee dagaalka Israa'iil iyo Iiraan ay fariin cad u siday Ruushka iyo Shiinaha labadaba in Mareykanka si degdeg ah go'aan iyo midnimo leh ugu dhaqaaqi karo si loo gaaro yoolal gaar ah wargeyska wuxuu tixgeliyay weerarka Mareykanka ee xarumaha nukleerka Iiraan guul istiraatiijiyadeed oo gaaban laakiin waxay ka tagtay xaalad jilicsan oo muujinaysa xasilooni darro muddo dheer ah ee gobolka oo leh wado aan cadeyn siyaasadda Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo dhiirigeliyay adkeysiga shacabka wasiirka arrimaha dibadda Abbas ayaa xaqiijin shacabka Iiraan ee halgamiyaasha ah ay adkeysan doonaan in la dhalashada dhiigooda si ay ula dagaalamaan cid kasta oo isku dayaysa inay go'aamiso masiirkooda
Cabaas wuxuu qoraal Ingiriis ah ku qoray bartiisa Twitter-ka markale shacabka weyn ee Iiraan ayaa adduunka tusay awood iyo adkeysigooda la yaab kale. Wuxuu intaasi ku daray mowjadaha buuqa leh ee taageerayaasha qaranka ee wadooyinka soo baxa si ay u sharfaan hogaamiyayaasha military, culimada, cilmi baarayaasha iyo muwaadiniintii shahiiday oo ku jiraan haween iyo caruur aan waxba galabsan oo si naxariis darro leh ugu dhintay gacanta ciidanka Israa'iil ayaa dhamaantood wada diraya fariin cad. Inkastoo cadowga Israa'iil uu leeyahay awood darro u yahay, anaguna marnaba ma qarin doono khasaaraheena. Waxaan u faanaynaa shahiidayaasheena kuwaas oo ah tiirarka hagayaasha. Ka walwalina qof kasta oo ka mid ah taliyayaashayada ama culimada aan waayin kulley qolaha ayaa diyaar ah inay booskaasi buuxiso. Ugu dambeyn, Cabaas wuxuu ku adkeeyay shacabka Iiraan oo xoog leh una adag ayaa istaagi doona ilaa dhalashada dhiigooda hortooda cid kasta oo isku dayda inay hogaamiso masiirkooda. Halka ayuu noogeeg yahay wararka caalamka ee maanta.